مانيس دين يعني ميلسان عمل حمر كهلي أنا وقت كان وحاسستا تدباتني يديو كلا وقت كان ميلها ودرت بدن إست أفريقيا هاجرت مقالة هاد كليل كجرو واركتي لما تجي فكروا لما صعوا كروا وحملوا عني كروا dadku waayeelka waa khatar ugu gali karaan maaragtay inay caafimaadkooda kuleelka ka jireen khatar gasho. Assalaamu calaykum galab wanaagsan maanta waxay ka shidan tahay xarun Eco Hub ah. soo dhawaada asxaabta kanaalka ku xiran maanta waa maalin gaar ah sababtoo ah waxa uu socdaa furitaanka Eco Hub oo ah xarun diiradda saaraysa ilaalinta deegaanka iyo isbeddelka cimilada meeshaas ayaan tagi doonaa waxa ka socda ayaa idin soo tusi doonaa dad badan oo meesha joogan waa la kulmi doonaa inoo bilaabo muuqaalka إن ما تنصب وقتين أنا وحاول علي فرح اسمها حرمت إيكو هاب. إيكو هاب وإنستيوشن شقينا إلى شاكياس وأد فوكس قرية أريمها ديجان كان هالابوركا ديجان كان صاحب طلع كاسو بنيرة هي فرصة أبور شقابور بدن وسمعه قد إيه هلا إن سمعه هالابور ديجان صاحب لا سيدو كله waxaan aad ugu shaqeynaa arrimaha la xiriira climate-ka iyo isbeddelka cimilada inta aan jirnana waxaan aad u qabanay barnaamijyo aad u ballaaran oo aad ugu weynaa shirkii isbeddelka cimilada oo markii ugu horeysay Soomaaliya lagu qabtay sidoo kale waxaa shaqo abuur badan u sameynaa dad kala duwan sidoo kale waxaan qabanaa activity oo artists ku jira iyo ku jiraan waxyaalo bulshadu u ah entertainment hadda xarun cusub oo Eco Hub ay leedahay oo isla xaruntii oo aan ku sameynay renovation ay jira oo maanta daafurkeeda aan qayb ka nahay oo aan u joogno halkan waxaan ku soo kordhinay in dadku aan u sameynay creative village oo u sameynaya entertainment kala duwan gaming meel lagu dheeli karo sidoo kalena space oo qofka uu ka heli karo shaaxiisa sidoo kalena tababaro xarun tababaro ah waa meel dhalinyaro oo hal abuur iyo entertainment isugu jirta oo qofkan uu ku shaqaysan karo marka aad ugu faraxsanahay Eco Hub inay noqonayso door weyn ay ka qaadanayso isbeddelka bulshada ee Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Muqdisho galab wanaagsan maanta waxay ka shidan tahay xarun Eco Hub ah channelka oo aniga ahaaya oo galabta gacanta ku haaya waxa waaye gacan ku haynta deegaanka waan la wareegay ma jirteen channelka gacan ku hayntiisa galabtay ana la wareegay arimaha deegaanka maxaa la dhahaa cimilada dhireynta hawada nadiifka ah meel ka shaqeysa oo rag dhalinyaro ay leeyihiin aan ka soo qayb galnay furitaankeeda arrintan waxay shaqeynaysaa horta in ka badan ilaa 4 sano laakiin dib u habeen aan u sameeyay arrimaha deegaanka maxaa adiga aad sheegi kartaa deegaanka waxa ugu yar aad u sameyn kartid haddaad wax u qabanaynin inaad dhibaatada ka joojisid ani dhibaatada ka joojiyo wasaqda iyo qashinka kuma shubo haddaad wax u qaban karin dhib ha ku sameeynin sidoo kaleeto waxa ugu yar oo deegaanka aad u qaban kartid waxa kamid ah inaad gurigaaga dhireysid inaad laamiga mataqaana dhireysid hal geed haddii aad beertid waxaad ka qayb qaadatay caafimaadka bilicda iyo quruxda dalkaaga meel kasta haddii aad artista taxta waxa ku sawiran kartaa waa lagu diyaariyay goobihii sawirka ku soo dhawaada Eco Hub gacmo furan koko ku soo dhawaada Eco Hub aan markii ugu horeysay meesha imaanay maahan dhowr jeer hore waa u imaanay maanta maxaa ku xiiso geliyay ku aragtay xaruntan Eco Hub oo dib habeen lagu sameeyay maxaa ku xiiso geliyay ka heshaad aanta horta markii ugu horeysay waa inta imaado an
markii ugu horeyso yani this environment oo saan camal loo hagaajiyay dhalinyaro badan iskugu imaadeen haddana kaasi daranta environment-ga lagu support gareenayo يعني deegaanka lagu support gareenayo wax aad iyo aad ii farxad geliyo waa man is dheen yani meel saan camal xamarka helay plus yani environment-ga in lagu guwaabsan yahay dhalinyaro taageerayso in geedaha la ilaaliyo environment-ga wadankeena la ilaaliyo ee jiraan ee isku imaanayaan ee ka discuss gareenayaan isku baranayaan yani wax aad loo farxo waa networking ka sameysma yani dad badan oo isku baranayaan يعني waxaad fiican waaye oo yani oo isdhaha yani horumarka wadanka ka mid tahay also deegaanka hadaad wax u sameey karin at least dhibka uun ka dhaaf qashin iyo waxa ku tuuray hada geed abuur karin oo shaqo fiican oo badan qaban karin dhib kale weeraan mid kale oo yani meeshaaniti guwaabinayso waxa isdhihi kara dadka isku imaadaan also yani ee ka meelay ka imaadeen ma guriye ka imaadeen so meesha inta waxay ka fahmaan delgo gurigooda geenayaan maybe gurigooda ka bilaabayaan geedo ka abuurayaan xaafaday ku xijinayaan yani waxa waay message oo sii soconayo wax badan ay cajibi horta aad waxa ugu faraxsanahay meeshaan dhalinyaro badan ka muuqdaan atmosphere-kan aad u fiican yahay oo markaad muuqaalka dhinac kasta ka eegtid waxa dareemaysaa maaragtay meel dhalinyaro ama meel ambient maaragtay environment-ga maaragtay oo deegaanka dad u ololaya inay joogaan wax weyn ay muuqdaan oo aad ii farxad geliyo insha Allah maxaa fariino u faraysaa dadka si ay u ilaaliyaan deegaanka any message weyn aan ayaan farayaa ani wadankan 10 sano ka badan ka shaqeynay deegaanka wilaayada ayadoo wadankan wasaarad jirin ama wax deegaanka u ololay ee jirin ayaan ka shaqeey jiray haddana wasaaradii iyo dad badan oo ololay leeyihiin laakiin sida loo baahnaa ilaa hadda ma ii muuqdaan laakiin waxaan leeyahay waa in wadankan wax badan laga qabtaa wadankan deegaankiisa markaa fiirisid fahanka dadka aad u yiraahdo waa 0% waa in wacyigelin badan la muujiyaa oo maaragtay la sameeyaa waa nasiib darro magaaladan Muqdisho in wax 5% ka yar ay geeda ay leedahay maanta magaalada hadda kuleelka jiro waa aragtay lama jiifo karo lama soco karo wax ma la cuni karo dadku waayeelka waa khatar ugu geli karaan maaragtay inay caafimaadkooda kuleelka ka jiro ay khatar gasho waa aragtay maaragtay temperature-ka kuleelka maanta magaalada wuxuu gaarsiisay meesha ugu darneed ebed ani wadankan waxaan xasuustaa 70 oo kale wadankan meelaha ugu dhirta badan East Africa ayaa jirta ani waxaan xasuustaa afgooy sokodeeda in ugaartaan arki jirnay maroodiga arki jirnay libaaxa arki jirnay shabeelka arki jirnay roobkan wuxuu dii jiray daily wadanka dhan waa nabad guurnay geediyaan jarnay wax kastaan jarnay ugaartaan barkicinay waxyaalahaas anaga wadankan waxaan arkaa inaan cimiladii aan ku suubinay masiibo gacanteena ku burburi waxaan leeyahay waa in xarumahan oo kale la badiyaa sida Eco Hub hadda meeshaan aan joogno waa siidka Soomaa in xaafad kasta oo magaalada Muqdisho ku taalo ay lahaato oo dhalinyarada isku yimaadaan kafeegooda ku cabaan printigooda heli karaan ku sheekaysan karaan waa wixii ugu horeeyay lagu farxo waay meelshaan oo kale maanta dhalinyaro isku yimaadeen faraxsan yihiin lagu wacyigelinayo laga sheekaysanayo deegaan siyaasad aan laga sheekaysanin dagaal aan laga sheekaysanin xasarad aan laga sheekaysanin ay ka hadlayaan next 100 years next 200 years adduunkan inay noqoto cimilo nadiifa oo qabow ay dhalinyarada maanta meeshan joogaan ay ka hadlayaan 100 sano soo socda 200 soo socdo waa wax aad aan ugu farxo magacayga maxamed Umar waxaan ahay aasaasaha shirkadda Geedsoor maanta aad ugu faraxsanahay inaan soo qayb galo furitaanka xarunta Eco Hub runtii Eco Hub waxa waaye xarun maxaa la lahaa dadka isku imaadaan deegaanka laga falanqeeyo arrimaha deegaanka waxyaabo soo jiitan waxaa ka mid ah qaabka meesha oo loo design gareeyay qaab oo deegaanka saaxiib la ah alaab walba taalan alaab ay tahay deegaanka wasaqeynaynin sida geedaha dhirta oo maxaa la lahaa dabiiciga ah iyo sidoo kale farshaxan qurux badan oo deegaanka saaxiib la ah waxaan u baaqi lahaa dadka inay maxaa la ka qayb qaataan ilaalinta deegaanka ma ahan dad maxaa la lahaa gooni u xil saaran qof walba ay maxaa la lahaa ka saaran tahay maxaa la lahaa inuu ilaaliyo deegaanka muhiimad gaar uu siiyo ay caagadaha maxaa la lahaa tuurin oo maxaa la dib u isticmaalaan
bacaha iska dhaafaan oo tote bag mismarooyin oo maxaa deegaanka saaxiib leh ay isticmaalaan sidoo kale dadkan waxa u baaqi lahaa inay iska dhaafaan isticmaalka caagadaha artificialka oo guryaha lagu quraxsaday xabiisada waxaa soo baxay maxaa la dhahaa dhir maxaa la dhahaa ay jireenba oo ebil loo isticmaali jiray dhir dabiici ah oo xafiiska maxaa la ariga kartid qolka ariga kartid kuwaas oo ku siinaya oxygen sidoo kale indhahan u fiican waxaana ka heli kartaa geed soor geedkan noo sharax waxaa noo sheegtay geedaha kale waxa kaga duwan yahay iyo waxa uu yahay geedkan waxaa la snake plant lahaa geedaha kale wuxuu duwan yahay tahay maxaa la adkaysigiisa aad u badan yahay biyaha isbuuci mara biyo lagu shubaa biyana ku dhex bixi karaa carran waa lagu dhex bixi karaa sidoo kale waa geedka kaliya oo habeenkii oxygen soo daanaya outdoor oxygen habeenkii soo daanaya indoorka gudaha ugu fiican waa asbaa aad ugu fiican yahay in guriga pollution badan uu leeyahay pollution-ku ka dhowqa oxygen ha u dayl malaan get sor thank you so much